waydaay filan waagan igu dhacay fiintuba la oydee واتهاي هايلوبين برنامج كويني يهي برنامج كي حيسها بدنا فانكا إيه سودانتا عاونا حالكي وقو عجيب سنيد ayaynu maraynaa maadaama oo marti ay noogu yihiin nasiibkuna idinku simay inaad wada daawataan laba fanaan oo aad qaali ugu ah bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan hareerahayga ayay fadhiyaan aniga qudhayda caawa aad u nasiib badan dhinacayga bidix waxaa fadhiya Shimaali Axmed Shimaali dhankayga midigna waa Umar Cabdulle Shooli madaalaha waa bari barnaamijkii caawa marti noogu yihiin waxaan rajaynayaa inaydaan dhinacnaba uga dhaqaaqin oo markaasi xataa kabankii caawa halkan u yaallo oo si toosa markaa la idinku tumayo oo aad ka wada bogan doontaan horta marka hore aan idhaahdo bal soo dhawow Shimaali Axmed Shimaali nimcay soo ma fiicneen fanaanka igu weyn inaad ku bilowdid waxaan soo koriyay adab iyo asluub عمر شيلي تشوغا أنا جو هذا ما ياسكو بلو. حقيقة ويتاسي وحنا نشألها احترام كأي كلا بنبين تأي قدرين تايسكو هيين فنانين تواوين طبعا أمد ومد ككلو آد حشمية وندكو أمانة يا شوي ملها دور شيربان كل ماي سيدا درتب بوحنا سري بلا تراه مركو هرسو دو شمالي أحمد شمالي هسيا شيء عمر شولي سودو سدوكله. نمعو صبريه أما نمع عدين هو كل سلامة أديك أنت تعيش هاي أنت كل شقي سودن أول دمان شغالها هون كابل ماذا حدا كره ماذا حدا دحى إلا هو صدع شغالها كله كل وهرت ويدين سلامة وحن سلامة يا هذا نبول شذا كنول هرجزة دمان وان سلامة يا سلام كدب سوى حدا كل وحن ومالين يا وحن وقصوت على قلنا هذا البلا شهان من بيحشو waxaan rabnaa inaan idin maqashiino sida aniga iyo runtiisa idinku sheegtay Shimaali Axmed Shimaali waa runtiisa waa respect ay ka tahay yani qiimeynta fanaanka ka weyn haduu qiimeeyo fanaanka weyn kan yar oo qiimeeyo yani sida ma ahalan xalku marka in la isqiimeeyo waa waajib aniga doo hadalka badin maayo nimco waana ku salaamaya inta jeceshahayna waan salaamaya intaadan jeclayna kugu ma qasbi karo marka waxaan leeyahay waxaan ku bilaabayaa hees la yiraahdo Iran caawa koor ma qaadin heesaas laakiin ayadoo album muusigana waa iman doona laakiin hadda kawankan ku tumaya waxaan jeclahay marka fanaaniinta kale oo da'yaro halkan ku noolna ayagana waan salaamaya si gaara waxaan leeyahay halkiinaan ka wada annagana halkaanaan keenay fanka sidaa waxaan dhiilahay aragti waxaan dhageysi waxaan nimco adigana waxaan u malaynayaa ilaa de South African ka fiirsaday halka ka wad adigana ka joogsan marka sidaas waxaan leeyahay daba waliba hadana kaamiristyaalka dhan magacooda ma koobi karo ma qoranin laakiin waan salaamaya
saaxiibkeena asigana xagga farsamada fadhiya jaawur waan salaamay waxaan salaamayaa hadduu ilaahay ku runaayo waxaa dhammaystiri doona shamaali nin la yidhaahdo warsame Africa Airways iyo Shariif aan meesha ka maqnayn runtii aad iyo aad noo soo dhaweeyay oo runtii aniga shamaaliba dhamaystirka asaab bixinaya aniga kolle shamaali qofba qof waa lagu bartaa runtii ninkaasna waa salaamaya nin la yiraahdo maxamed cabdina waan salaamaya intaan iloownina raalli aan naga noqdeen because dadka magacooda ma koobi karna kulli marka waxaad sugtaa wax waa Iran heeska liraanu ka bilaabaya shamaali waa aday ku sugaysaa marka aniga laakiin aniga hadana bilaabay runtaan kugu jeclaa ralliyaan kugu aqaan naftayda ku raacday iron aniga ku rabo raqiisna iguma eed iron aniga ku rabo raqiisna iguma eed sidaan kugu riyaaqsanahay iron aniga ku rabo raqiisna iguma eed iron aniga ku rabo raqiisna iguma eed sidaan kugu riyaaqsanahay ku raacay anigu qalbigay ku raacay iraacday aniga naftayda ku raacday ku raacday anigu naftayda ku raacday adoo ku raadinayo hurda macaan ku jiro riyaan habeenkii kugu arkaa anoo ku raadinayo hurda macaan ku jiro iron aniga ku rabo raqiisna iguma eed iron aniga ku rabo raqiisna iguma eed sidaan kugu riyaaqsanahay iron aniga ku rabo raqiisna iguma eed iron aniga ku rabo raqiisna iguma eed sidaan kugu riyaaqsanahay ku raacay anigu qalbigay ku raacay ku raacday anigu naftayda ku raacday aniga arko dunida ridada jacaylka qabin ayaad igu soo rido ruuxaan
markaan aniga arko dunida riddada jacaylka qabin ayaad igu soo rido iron aniga ku rabo raqiisna igumayd iron aniga ku rabo raqiisna igumayd sidaan kugu riyaaqsanahay iron aniga ku rabo raqiisna igumayd iron aniga ku rabo raqiisna igumayd sidaan kugu riyaaqsanahay ku raacay anigu qalbigay ku raacay ku raacday anigu naftayda ku raacday anigu qalbigay ku raacay anigu naftayda ku raacday anigu qalbigay iron aniga ku raba raqiisna iguma tihid iyo waliba Cumar Shooli iyo gacanta macaan ee kabankaasi lagu tunayay dhinacan iyo mar kale waxaan soo jaleeci doonaa Shimaali Axmed Shimaali qiyaas ahaan 30 sano ayaa ka soo wareegtay waqtigii ugu dambeysay baan oran karaa magaaladan Hargeysa ee caawa markaasi aanu fadhino barnaamijkana aanu idinka soo tabinayno si kaliya laaba baan ku leeyahay soo dhawow kusoo dhawow shacabkaaga ku jeclaa magaaladaadii kusoo dhawow muddooyinkii ugu dambeeyay xoogaa fankaaga waxaad moodaa in yar uu yaraha kada sidaa darteed dad badani ay suuqa markaasi ka lahaayeen Shimaali Axmed Shimaali wuu ka baxay fankii Soomaalida wax wara adigana lagaama helin oo arintaasi aad kaga hadlayso run iyo been hase yeeshee caawa fadhina maxaa ka jira warka horta nimcooy aad baad u mahadsan tahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waddankaygii labaad inaan imid oo xukuumad iyo shacab iyo askariba iyo ciroole iyo caruur si weyn naloogu soo dhaweeyey taa hada min fadli rabbi fadligaas ilaaha bixiya marka nimcooy horta shacab iyo xukuumad yar iyo weyn ilaa madaxweyne ilaa wasiir ilaa caruur iyo ciroole waan salaamaya say noogu soo dhaweeyeen waxaan leenahay miisaankiina aakhira ilaahay ha idinkugu daro nimcooy horta aniga waxaan ku noolaa waddan fankiisa uu xirxiran yahay Saudi Arabian ku noolaa Jidda 24 sanadood Saudi Arabian ma aha beled fan marka sidaas ay fankayga u hakaday horta inaan TV soo fariistay wali ma oran oo laygama hayo fankii waan ka baxay fanka wala siga bixi karaa yahdillahu linuurihi man yasha yani anigu wali inaan TV soo fariistay Shimaali fan waa ka baxay ma oran fankana wax uu qabo aniga garan maayo fanaan waa loo baahan yahay murtida waa loo baahan yahay anaga wax qalad oo sheegi mayno dadkan waana mesela nimcooy haddii aan oran lahaa maxkamadan aadaya raguushow aaya male ashuunkay ku adimaan haweenkaa ka amar weyn ma hees baa miswawaano anaa eeday oo ka ooyey anaa ciil aqal la seexday anaa ubadkay rajoobay ninkii ashahaadanayo dadka gaalada ha aadin kaasi hees ma oran kara aniga waa wacdi fanaaniinta waxay jacayl bay qaadaan waxay qaadaan wadani iyo wacdi bulshada markaasi hadba say tahay ayaan wax ugu sheegnaa haddii taas la diidan yahay ma aqaano laakiinse anigu nimcooy fanka ma bixin waan ku faraxsanahay soo dhaweyntaada adiga inaan kula kulannaa aniga Cumar Shooli waa ku faraxsanahay wixii su'aal aad haysidna inaan kaaga jawaabaan diyaar u ahay warku cad yahay sabar muuqda su'aal ka dhanba la yiraahdaa hadii in badan markaa la isla dhex marayay warkaasi isaga ah caawa ka isagiyo nool oo idin soo hor fadhiya Shimaali Axmed Shimaali deediyiri warkaasi waxbaba kama jiraan heesa badan oo aan halkan lagu soo koobi karin buu leeyahay fanaanka oo uu qaada Shimaali Axmed Shimaali bal waraysiga iyo qaybaha kale iyo isxaal waraysiga iyo xogta barnaamijka qaybaha dambe inuu ugu tagi doonaa haddii aan idin xasuusiyo oo waliba aan idin soo qabto mid ka mid ah heesaha fanaanka Shimaali Axmed Shimaali waliba sida gaarka ah aadka loo xiiseeyo baan oran karaa aniguba aan ka mid ahay dadka dooq ahaan la dhacsan fikiriyo naftayday ay ustaad
نمعة أيضا بقطر عبا وياي فكري نفتي ذاي في الواقن يقول داعي في انتبالي ذي فكري نفتي ذاي في الواقن يقول داعي في انتبالي ذي في دبده wadnaha suran tii jacayl ku fidisayba fulin weyday wacadkii feedha bidix wadnaha suran tii jacayl ku fidisayba fulin weyday wacadkii فعلات سميسانا سمر باو في عالي فعلات سميسانا سمر باو في عالي هفكني فيها يجوب هفكني فيها يجوب فعلات سميسانا سمر باو في عالي فعلات سميسانا سمر باو في عالي هفكني فيها يجوب هفكني فيها يجوب فرحان عياريو أروس بان فيلاي سوكا فالكي جسكالي فرحان عياريو أروس بان فيلاي سوكا فالكي جسكالي فالله وجستين ميدان في روديرين فولي ويدي وعدكي فعلات سميسانا سمر باو في عالي فعلات سميسانا سمر باو في عالي هفكني فيها يجوب هفكني فيها يجوب نمعة وإلبتي ولا لي وحا إسو حسوس صدق سنة كور حتى هو ذاك مسؤولة xusuus iyo berisanaad iyo weliba dee marka halkaasi xaalku marayo dhankan iyo waxaan u imanayaa Cumar Shooli madaalaha waa bari horena waanu sheego waxaan idhi markii isugu kaayo horeysay maaha waraysi hore iyo weliba dee xog baanu kala qaadanay Shooli waxaan maqlayay maalin dhaweeto adigoo ka cabanaya arrin ah magacaagi oo markaasi fanaan kale oo yacni aad leedahay fanaan kala qaatay magacaygii arrintaasi iyo in fanaan hore magaciisa la qaato iyo fanahaan adigu sidaad u aragto iyo arrintaasi haye nimcoy horta waxaa la yidhi hadal sheeg kii wax kuu tara sheeg hadal ku hadal bulshada wax u anfacayo sheeg aniga kulle fanaan bannaanka yeelanahay ma qarsoonayo magacayga fanaaniin noocaasaa jiraan shamaali hadda ninka sheegto isaguun bay u taallaa shamaali waa shamaali shoolli waa shoolli shakigaba ha laga saaro aniga waxaan qabaa hadda qofkaasu haddaan la tartaba magac weynaan buu u sameeyey
laakiin la tartami maayo aniga meeshaan tago kuraasta waa laga boodaya dadku waa yaqaaniin nin kale oon hadda magac doon ah aniga hebel dhihi maayo qofaan la hadlayo male fanaaniinta dhallinyarada waxaa ku jira fanaaniin fiican baa ku jirta oo berri anigana bedeli karo oon asluub laakiin u shaqeeyo si asluubaysan ma ahan in yacni sidaaba fadeexadaha iyo noocaas oo kale laga haro aniga hebel dhihi maayo laakiin waxaan ku leeyahay fanaan waxaa fanaan ah ninkii codkiisa iyo magaciisa ku kalsoonaado ku ekaysto haddaad magac kale iyo waxaas raadisid waxa waaye niman beertiisa ku yaraata beer kale islaameed jafaaliye oo meeshaas anigaa iska la yiri marka ma soconayso aniga kolle nin waxaan ahay intaasoon fanka ku dhex jirna 47 sanaan ku jirnaa fanka 47 sano aniga fanaaniin baa iga horreysay ma inkirsani ninkii darrata dhimanaya allah u naxariisto maxamed axmed kulo fanaaniinta naga horreysay waa maxamed salaamaan cumar dhuule dadka saas waa naga horeeyaan xamar qaasin iyo lolo joof dadkaas oo dhan waa naga horeeyaan marka ma dhihi karo dadkaas anigaa ka horeeyo haddana inaan magacooda soo qaato aan ku cayaara ma ahayn aniga kolle ma jecli in magac xumo iyo masiibo maray ku raacaan marka qofkan gafkaa samaynayo bulshada soomaaliya u taallaa aniga ima taallo bulshada soomaaliya inay wax ka qabato ama tallaaba ka qaato because soomaalida sharaf baa lagu ogaa nidaam baa lagu ogaa waxaa lagu ogaa waagii hore heesuun baa layska qaadan jiray hadda magacii waa lasugu soo galay nimcay magacii qofka hadda marka nimc sabriya haddii too kale inta nimc sabriyaan la yidhaahdo ma soconayso nimc sabriya oo soo shaqaysay nimco saas ama nimco isku nimid maahine aniga nimco sabriya lama yidhahdo hun keebalna kama shaqeeyo inay saas tiraahdo laakiin nimco sabriyaan ba ahayba ma soconayso qofka fanaanka kale yuu dhihin anigaa saas ah waxaan dhihi lahaa qofka haddiiba lasoo qaadqaado magac weynaa loo sameeyey shoolle weeye ma jiro qof kale aniga carruurtayda saddexa ka haysto hadda nimaan soo saaraa hal kaas waxaan jeclahay ilaa hataa hargeysa inaan keeno oo inta laga sii daayo yacni waa fanaan anigu horta iga xishoonayaan laa soo gelin meesha hadda waxay daruurta ku tahay magacyadayna qof kaleba hadduu isticmaalayo inaan wiilkayga soo saaro ana ku dhahay may saas weeye saas weeye marka ma wallaahi marka waxa weeyaan wiilkayga ayaan soo saarayaa axmed cumar sholle mid kalaa jiro marka labadan horta halaan soo hormarinaya saddexdan marka dadkan oo hadda dibadda ama dibadda ku hadlo dad baa jira fanaaniin fiican waxaan halkan ka salaamayaa aan runtii abwaan iyo aqoonyaan ninka la cabdi good waan salaamayaa ninkaasoo ninka anshax xumo ka sheego yani waxyaalahaas waa raaca waa tax raaca ilaa uu yani meel ka saaro cabdigood aniga hadda ma aqaano inta hadduu iga hor yimaado laakiin waa nin la soo diray waayo oo mataqaanaa suugaanta daba taagan marka waa loo baahan yahay idinkuna sidaasoo kale waa inaad mataqaanaa wixii qaldan aad dadka u sheegtaan wixii fiicanna aad ku dhiirigelisaan maadaama meediyaad joogtaan marka aniga inaan inta imaado hees maxamed salamaan aan qaado mush macquul heeskan nin baa soo qaaday ama axmed mooge aan qaado axmed mooge soo qaado maya waa qaldanahay laakiin fanaannimo ugu ictiraafsanaya guri dhexdiisa haddii lagu baashaalo oon la duubin ama tv loo imaanin waa la samayn karaa laakiin ninkii oo taagan ama dhintay ayaa nin kale heeska sheeganaya anaa qaadayuu leeyahay badan marka ma soconaysa taas magac waa hal mar ixtiraamkana waa mar ay shacabka ku ictiraafaan calaa kulli xaal nimco iyo hadal kuma dhammaado tv-ga kuma dhammaado laakiin meediyaasha waxaas fiirisaan ninkii hees uusan lahayn la yimaada media waxaa tiraa ku soo noqoniyo heeskan ma lihid celi way b b c da dad i soo burin jireen waxay yidhahdeen saaxiib heeskan dadan ku ogna gurigaaga u noqo hees kale keenso marka intaasaa ladinka raba
allele waa iska laabadaas bade horta tani kaama soconay sidaas damba u imanaysaa dhankan iyo shimaali baan mar kale jaleecayaa waxaan filayaa riwaayadii ugu dambeysay ee isa seega jacaylka riwaayado badan baad ka qayb qaadatay fankaagu ma cusba oo hadda ma odhanayno shimaali baan idin baraynaa xilligaasuu bilaabay xilliga taasina lagamaba siisanayo hase yeeshee waxaa dhici karaysa kooxo kala duwan kooxdii kuugu horreysay ee adigu aad markaasi ka qayb qaadateed ka mid noqota kooxday ahayd maxaad naga xasuusin kartaa fankii waqtigaasi anigu nimcooy anigoo arday ah dugsiga sare sayid maxamed cabdulla xasan marka ayaan ka soo baxay waxaan aad u jeclaa fanka xamar baan imid 79kii bay ahayd waxaan qaaday heestii igu horeysay waa nagoo firaashiyo farxadaan wadaagno faysal iyo xambaartood faarax daadahaysaa ereyada waxaa lahaa alla yarxam cabdalla nuurudiin qaysar muusigana waxaa lahaa alla yarxam shiiraan shidaad muraad anigana waan qaaday marka heestaasaan ku soo galay horta fanka 79kiina way ahayd waa yar iima baryan nimcoo yuu ku siri wejigayga anaa qiranaya maanta tvgaan joognaay marka nimcooy bakaka soomaali abo baan ahayn waxaanu qaadi jirnay laafateena bilisuma soomaali abo afkaas qotigan waa aqaan yaan kuu gaban waan ka soo baxnay waxaan la baxnay durdur kooxdii durdur alla yarxam sahradawa odaygeedii ciise daahir qaasim ayaa horta aniga isoo saaray macallinkayga ahaa ilaahay waxaan ugu baryayaa bifadli hadihi saaca almubaarak asaga iyo inta fanaaniin oo dhimatay alla yawasic qabrahum alla yanawir qabrahum alla yaxfadahum fi alaakhira alla yazawad miisaanahum marka inta dhimatay oo dhan hortaasaan ugu ducaynayaa rasuulkuna waa kii yidhi ducaau lmusaafir mustajaab aniga iyo shoole musaafir baan nahay ducadeena inuu ilaahay aqbala ayaa laga yaabaa rasuulka been ma sheego wamaa aataakum arasuul fakhuduu wamaa nahaakum canhu fantahuu waa aayad qur'aan marka ilaahay hor ducada naga aqbalo idinkana waanay ducaynay annagana noo duceeya marka nimcooy baryahan dambe aniga waxaan u batay dhinaca ninba dhan u badi waa ti la dhihi jiray horta fanka soomaaliya oo dhan waa wada fanaan hadda waan ku faraxsannahay aniga iyo shooli wax la bedelo waa doonaynaa inkastoo weli halgami karno laakiinse daaqadda waxaan u banaynaynaa ragga naga dambeeya waxaan leenahay welcome laakiin welcome ku soo dhowaada oo idinkoo naga saqaynaynin oo na xafidaysaan na sharfaysaan marka aniga waxaan u batay dhinaca nebi ammaanka waxaana iska yaalyaal ma aha waa haybad ilaahay ku siiyo fanaaniinta way badan yihiin kulli ma wada qaadaan nebi ammaan ninkii ilaahay u doorta ayuunbaa qaada marka waxaan rabaa inaan waxyarkaaga soo qaado shoole waa heesay ani waa ku heesay odayaasha dee nebi ammaanka jecelno inaan markooda u dhex gelino miyaanay ahayn awalow nebiyo waan salaama awalow nebigeeni waan salaamaye قاسم أبه سلام أولو نبي والسلام أولو نبي والسلام قاسم أبه سلام إيه لما يسترن نمعوي أذيك أدوينها مقشين دونا واد معتنتاي نمعوي وحان إلاوي كريم أن كفا إذا ستشارس كان أد إسيسي ubax fahmo fanaanada iyo odaygeeda subxaanyo ayaan si gaar ah u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa salaan qalbi ah soo ustaadka cumar shoole uu ku sheegay jaahuur top design ninka magaalada lagu soo dhaweeyey waa isaga waxa kaloo waxaa hiil iyo hooba nagu soo dhaweeyey ninka warsame xasan gaas waa African Airways ninkaasi nimcooy si gaar ah ayaan aniga iyo saaxiibkayga qaaliga marna aabahayga si gaar ayaan u salaamaynaa warsama iyo bahdiisii African Airways oo dhan adiguna naga gaarsii waad mahadsantahay nimcooy sidaas ay ku gaadhay dabcan mar haddii shaashada inaga baxo warka waa la helay bay ka dhigan tahay bal mar dhawaan idin weydiin doonaa waan idin iman doonaa waxaad wadaan shacabka waxaad wadaan bushaarada waan dambaysiinaya laakiin bal dhanka heesaha aan mar kale ku imaado heestaad wado ee aad leedahay kuwa kale dib baan u dhigaya heestayga si qabta heesteen soo doorna
horta nimcooy heesaha haddii waa qaadayna aan dhahno waagaa noo baryi anigii istaadka markaan dhexda ku gashano laakiin annaga soo koobayna heesaheena waxaan kaa codsanaynaa inaad habeenka aan showga dhigayno inaad toos aad u duubatid laakiinse hadda dadweynaha wax yaroon ku madadaalino ayaanu jeclaysanay inaan anigii odaygaba ku siino odayaan dhihide iyo xanaaqine haa 6 sano igu weeya wax weyn miga weyna ayaa nimcay aniga waa war igu baryin waataan kuu sheegay haddana kugu celinaya 6 sano unba igu weeya marka wax weyn hees baryahan dambe caruusidii batay Allah noo zaayidiyo marka caruuskaas batay inaan anna hees ku daro ayaan dhiyeystay marka heesta sana ciyaaraya heestaasi caruuska intiis aroosatana waxaan leenahay haddaba waa dabaaldegini inta soo socotana ee hordhac u sii qaataan leenahay heestaasi carooska Shimaali Axmed Shimaali aan ku wada ciyaarno dhamaanteen kala dambeeya deeq iyo maal duca waalidela dunya alla siiyo ubadaadeheya dulqaad weheshada waalidin ducayne dayn haydinka yeele waa dabaaldegine dayn haydinka yeele waad isdoorateene dayn haydinka yeele ay hoobalow hele hoobaalayow hele ay hoobalow hele hoobaalayow hele dunida waa maalme doorka aakhiro dembi aan lahayno jannadii dugsoone durdurkeeda kacaba daa'in haydinka yeele waad isdoorateene daa'in haydinka yeele waad dabaaldegine daa'in haydinka yeele waan idin ducayne daa'in haydinka yeele ay hoobalow hele hoobaalayow hele ay hoobalow hele hoobaalayow hele labadii isdoortee daryeela jacaylku kala dambeeya deeq iyo maal duca waalidela dunya alla siiyo ubadaadeheya dulqaad weeshada waalidin ducayne dayn haydinka yeele waa dabaaldegine dayn haydinka yeele waad isdoorateene dayn haydinka yeele ay hoobalow hele hoobaalayow hele 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 waad isdoorateene dayn haydinka yeele waad dabaaldegine dayn haydinka yeele ay hoobalow hele hoobaalayow hele ay hoobalow hele hoobaalayow hele heestaasi caruuska iyo Shimaalina inaad si fiican uga bogateen ayaan markaasi rajaynayaa madaalaha waa bari iyo waliba Cumar Shooli baan dhankiisa imanaya aan markan isagana iraahdo bal waxaad noo qaadaa Shooliyo sahankii jacaylkaay salaadaha dhexdoodan sahwiya daraada يا سلام هردان كسلة
iga qabasho mikrofoonka waa sidaan sheegtay nimco sabriye runtii heestan waa cusub tahay caawa hargeyso magaalada hargeyso waxay nasiib ay u yeeratay heestaas inaan halkan ku dhaafo ama aan ku duubo runtiina on cable aan u dhaafo weliba marka heestu ma ahan hees aniga ma samayni haysta ereyada waxaa sameeyey cali ziko nin la yidhaahdo laakiin muusiga iyo codka waa aniga de kulle sahankii jaceylka salaadaha dhexdoodan sahwiyaa daraadda hurdadan ka salla mana seexdo awgaa muddo badan ayaan sugaya inaan saamin kugu helo saddex kuga xalaasada wuri dabadeedna sabab waxan saankii jacaylkay salaadaha dhexdoodan sahwiyaa daraadda hurdadan ka salala saankii jacaylkay salaadaha dhexdoodan sahwiyaa daraadda hurdadan ka salala mana seexdo awgaa muddo badan ayaan sugaayay inaan saami kugu helo saddex kugu xalaashado dabadeedna sawa wacan mana seexdo awgaa muddo badan ayaan sugaayay inaan saami kugu helo saddex kugu xalaashado dabadeedna sawa wacan subaxaan waraba naftu igu sidigtahay subaxaan waraba naftu igu sidigtahay codna sacabka hawtuman sadaasha beenta adduunyadan silsilada عطنا صعبك هوتمن سداشا بينتا الدنيا بان سلسلة دا قفنا كما سلكارو ساكا يلا دولبا وتليسكو سيغا عطنا صعبك هوتمن سداشا بينتا الدنيا ذا سلسلة عطنا صعبك هوتمن سداشا بينتا الدنيا ذا سلسلة قفنا كما سلقارو ساكا يلا غلبا وتخليسكو سيغا Soomaaliyoydin dumarkoo safnaaday munadoodii sanadkan tii aan ka socday Soomaaliyoydin dumarkoo safnaaday munadoodii sanadkan tii aan ka socday waxaad ila siman tahay quruxdeeda sidataa qorax soo baxayso marka sare u qaado irkoo sagal ku larayay waxaad ila siman tahay quruxdeeda sidataa qorax soo baxayso marka sare u qaado guud suran badweyntii
cirko sagal kularayay sayrisay falaara cirko sagal kularayay sayrisay falaara hadna sacabka hawtuman sada shabeenta adduunyadan silsilada hadna sacabka hawtuman sada shabeenta adduunyadan silsilada qofna kama salgaaro saaka yeelado leba wadka laysku sigaa hadna sacabka hawtuman sada shabeenta adduunyadan silsilada hadna sacabka hawtuman sada shabeenta adduunyadan silsilada qofna kama salgaaro saaka yeelado leba wadka laysku sigaa waa tahay shooli iyo weliba heestaasina iyadana waad iga haysaan baan filayaa weli xagga dambe ayaan weliba waan soo socdaayo hadba heesaha waxaan isleeyahay halka hore kalgacalka ha soo wada marinina bal xagga dambena aad dib ugu dhigatid waxaad dareemi karaysaa dabcan labada fanaan ee hareerahayga fadhiya waxa ay soo wadaan bandhig faneed markaasi xiiso badan oo ay ku qabanayaan magaaladan Hargeysa dad badan baa isweydiiyay mar hadday yimaadeen talow Hargeysa sidaasi miyay kaga tagayaan bandhig faneed bay qaban doonaan heesahan iyo waliba kuwoogii kale ee xiisaha badnaa shooli Hargeysa ka dhacaya sidaan maqlay waa Hotel Crown heesihiin dad ku soo bandhigaysan labadiina ka wada qayb qaadanaya yaa idin kula jiro kala bandhig faneedkaasi ku jira dhalinyaro waxaa ku jirta oo magaaladan laga jecel yahay runtii markaan soo qaado alfanaan bikey iyo gabar aan ka dhicin la yiraahdo magaceeda xamda kuwi marka fanaaniinta nimcay kuwa kula jinna waa la helaa adiga kula faca kuwa ka waaweyn waa jiraan aniga ka waaweyn adiga kuwa adiga kula jinna iyo kuwa ka yar yar dad waa la soo saxaabeen hore waxaan arkay gabar ka heesaysay maandeeq halkaani soo dhigata waa fiirinay maandeeq waxaan yidhi maandeeq maa heesaysay gabar yaray ahayd tv-gan ka fiirinay war waxaan yidhi wallaahi waxaan yidhi waa la soo socdaa dee anaga kuliyaan ma taagnaan karna waa dhiman karna waa duqoobi karna moogta dad baa soo socda idinkana dhiirigeliya garbaha inkastoo nin geesiya raggu geed adeega haddaan garabka lala qaban guryahooda maalira marka finaanintaas yaryar soo dhaweeya markuusan ka bixin xadkiisa uusan isuu bega barnaaqan uusan naqan waa inaad soo dhaweysaan marka heesaha watan haddayna kuu sheegay heese cusub heese dhexe heesihii hore ayaan soo arkiibiyaaraynay hataa shamaalina waa sidaasoo kale u heestaa marka dee kolle waxaan u malaynayaa hadalka waxaa ka fiican in la ururiyo sida heesaha markii hadalka muusig dhex galo waa aruuraa waa yaraadaa laakiin hadalka maanta waa la iska hadli karaa marka waxaa dadweynaha iga sugayaan meel kasta ha joogeen wixii af soomaaliga ku hadlayo in aawa ama ayna arki doonaan ama ay habeenkii mataqaanaa barnaamijka dambe ay si fiican nooga dharki doonaan waa kan shimaali dhowr 20 sano ayaad Sacuudiga aad ku nooleedo dhagta un sida lagugu taagay fankaagii habeenkaasi hadduu ilaahay qadaro dadka waad soo hor istaagi doontaa maxaad inta raacinaysaa nimcoy markaanu qaadanay BK iyo Xamdi Queen ma aha inaan fanaaniintii kale ee yaryaraha Hargeysa aanu ka tagnay nasiibka ayaga ayaa ilaahay noogu daray marka fanaaniinta kale waan idin jecelnahay dadkan ayaga chance ka helay marka si kala hanoo arkina ayaan leeyahay
heesta arooska waxay tahay markaan in yar iyadoo bilaa musiga ku qaado labadii isdoortee daryeela jacaylko kala dambeeya deeq iyo maal duca waalid helaa jannadii dugsoonay durdurkeeda kacaba dayn haydinka yeele waad isdoorateene dayn haydinka yeele waad dabaaldegiine dayn haydinka yeele waan idin ducayne dayn haydinka yeele ay hoobalow hele hoobaalayow hele waa tahay alla ilahe yaa salaam taasina heestaasi bay markaasi haddaynu mar kale soo qabanno iyo weliba heesaha kale ee dee cajiibka heesta dhaantada ah iyadna waa heesahaad hargeysa ku qaaday baan filaya intaad joogtay erayadeeda heesta waa guuxda dhaantada guuxda la yidhaahdo weeyaan waxaa ka mid ah erayadeeda iyadoo musiga waa dadweynaha way ka dhargi doonaan laakiinse waxaa fiican shayga asoo bilaa musiga horta kow ina dadku ay daawadaan kadibna asigoo dhammaystiran inay daawadaan waxa weeyaan iyadana anna waxaan ku iri onan weligay ku oran amantaada inanyay ku ildoogsanaya amantaada inanyay ku ildoogsanaya cashaq baa idilo idaashadayay waan ku daawanayaaye dawadaydii ahaawe waan ku daawanayaaye dawadaydii ahaawe waan ku daawanayaaye dawadaydii ahaawe nimcoy adigu dhammaystir iyadoo muusigii iyo weliba cajiibka inaguna ciyaarta aynu raacino iga qabta dhaantadaasina dawadaydi ahaawe
idilo idashadayay wanku daawanayaaye dawadaydi ahaawe wanku daawanayaaye dawadaydi ahaawe wanku daawanayaaye dawadaydi ahaawe شقبا إدلو وإداشدي وندعي سنيا دقك لا يدري وندعي سنيا دودي يا هو أنا وحان كويري أنا ويلي غيكور أما انت هذا إنيكو إلدوك سنيا أما انت هذا إنيكو إلدوك سنيا صدرور كالقعالكا درور بايقو خورتي واندعي سنيا دقك لا يدري واندعي سنيا دوديدي أهاوي واندعي سنيا دوديدي أهاوي صدرور كالقعالكا درور بايقو خورتي واندعي سنيا دقك لا يدري واندعي سنيا دقك لا يدري واندعي سنيا دوديدي أهاوي عشق بايدلو وإداشدي واندعي سنيا دوديدي أهاوي واندعي سنيا دوديدي أهاوي واندعي سنيا دوديدي أهاوي واندعي سنيا دوديدي أهاوي waxaan idin heesaha inta kale iyo weliba heesaha muusig cajiiba leh habeenkaasi bandhig faleedka ay qabanayaan shooli iyo shimaali safka horeyaan la idinka waayin hadday baydi ka buuxsanto waa kaasoo waanu idiin sii sheegnay waa inaan markaasi lagaga horeyn kelmadaha gabagabada ah waan u dhiibi doonaa mikrofoonka waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa markaasi mulkiilaha iyo weliba shaqaalaha dhammaantood restaurantka Sky oo ah halka aanu barnaamijkan ku qabanayno oo dabcan ah meel aad u qurux badan oo aanu u dooranay inaan barnaamijkan idinka soo tagno toddobaadkan aad iyo aad baan markaas ugu mahadcelinayaa Faisal Jaamac Maxamed iyo weliba Axmed Cismaan Dawa dhammaan shaqaalaha waxaa la soo dhaweyntiinii aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin kelmadaha ugu dambaysan aanu kala dhiibo shooli iyo shimaali العيب بحال يرجع فرحة الوضع أول ما يشرح مريم بركة سوريا يقول أنا ما لها يقول أنا الصومالي مسلم مصنع صارني في أحباب بس أولا كيسوي شيء أنت من العيا واحد ريال ولا شو لا واحد آخر كده ما تدور حد الأول من ما كنت هنا عاوة وحام أنا قد بسيط أنا قد شماري يفناني كنا كم كنا نشقين يفناني تكرر من جربه مرة بعد وحنا لنا وسلامنا وأنا سلامي وأنا ممكن وحام تشعرنا سيري عروتي مرة أنت ما هي هي روحنا لقيتك ولاي ما يبقى إيش أنا كمان تعرف ما هو marka waxaan salaamayaa booska on cable farxaan inta kor waa aragnay way soo dhaweeyay laakiin laba cishaan meesha tagay waan soo waayay iyo ku xigeenkii ilig mooha
asna waan salaamayaa iyo inta xafiiska ka shaqayso dhan waa salaamayeen waxaa aniga hadda aan raacinaya wax yar oo hees yar oo kabana kadibna shamaali ku wareeji waxaan dhihi lahaa heeskaasu dadka dhan waxay leeyihiin muxuu u saari waaye dumar kale ma caashaqin hadal damaku waan oran doqaagu wuxuu rabo kulandeenba ku galo weli diiday kumaan oran dumar kale ma caashaqin hadal damaku waan oran doqaagu wuxuu rabo kulandeenba ku galo weli diiday kumaan oran dadku wou dagaala dabadeed tashiya inaad raacdo dul kale ma wax loo dulqaataa naftaydii diidayo kama daddegayse adaaseegay dawgii iga dorogo adiga ma haya shamaali ku wareeji waa tahay shimaali baan ku wareejinaya haye shimaali nimcooy hadal haa ma buuxsho wixii la dhihi lahay waa dhahnay marka guntii iyo gabagabadii waxaan salaamayaa inta laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah dhahaysa ayaan salaamayaa waxaan salaamayaa reer hargeysa madaxdooda shicibkooda iyo ciidankooda yar iyo weyn waan salaamayaa say noo soo dhoweeyeen miisaanka aakhira allah ugu daro waxaan salaamayaa soomaali weynta kale xamar oon ku noolahay iyo wixii ku nool dhan ciroole waan salaamayaa waxaan salaamayaa caruurtayda oo sacuudi arabiya joogta hadday iga fiirsanayaan hon cable t v waa 7 caruur 4 wiil iyo 3 gabdhood abo عيالي أسلمكم تلفزيون هون كيبل تي في يعطيكم العافية الله يحفظكم ويحفظنا جميع الله يهديكم ويهدينا جميع حتى مقليسان يرئي وين أنون إذن مقعاوين هو يذودي أو كنول دبي وان سلام يا أنيقو كنول حمرنا والسلام يا أذيق النمعو أيان سيجارة كو سلام يا مهد سند ولا صفية ماذا حروح يسان أركي واقف عربي جدي بعاول لقوا هاد لو حتري واتهاي aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sharaf bay ii tahay qiimo gaaray ii tahay farxad bay ii tahay fursad bay ii tahay inaan dhexda u soo fadhiisto caawa labadan fanaan oo markaasi aan dhexdooda ka soo waramo aad baan ugu mahad celinayaa Cumar Shooli sidoo kale Shimaali Axmed Shimaali aad baan idinku mahad celinayaa qaali baad nagu tihiin waad ku mahadsantihiin inaad aqbashaan inaad ka mid noqotaan fanaaniinta aan ku marti qaadno barnaamijkan fankiisa sugaanta waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sidii markii hore oo kale aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha iyo mulkiilaha restaurant-kan Sky oo ku yaala magaalada Hargeysa bahdayda Home Cable TV teamkayga aad baan ugu mahad celinayaa dhammaantood iyagoo ka wada qayb qaadanayay markaasi barnaamijka dhanka film qaadista haday noqoto iyo waliba habaynta kale محمد داود يوسف محمد أحمد حسين قابنة sidoo kale cigaal aadan Safiya Ismaaciil Snoop aad bandamaantood ugu wada mahad celinaya habeenta barnaamijku waa Cali Cusmaan Cali Maano isagana waxaan leeyahay waad mahadsan tahay waxaan u mahad celinayaa sidoo kale Jaahuur Cabdikariin Jaahuur iyo teamkiisa la shaqeeya shaqaalaha dhan oo aan leeyahay barnaamijkan la'aantiin muu suurta galeen aadna waad u mahadsantihiin tan iyo sarag dambe hadii Allah wada la aqbalo nabadgeliyo Shimaali wax kale miyaa haray laba caruur aan dhalay oo Canada jooga iyo hooyadood oon kala tagnana waan salaamaya Maxamed Baana iyo Sahra Shimaali Axmed Shimaali iyo hooyadood Culuma Xuseen Yaasiin oo ku nool Ingiriiska ayaan salaamaya inta ehelka Australia America Ingiriiska meelahaas oo dhan reer Shimaali oo dhan meelahaas ay ku kala nool yihiin waan wada salaamaya waadna mahadsantahay halmaan hadal kuma jiro farxadda keentay inta badan oo qofka marka farxadda dabcan sidaasi ayaan idinkaga tagaynaa nabad geliyo
ruuxaan aniga arkoo dunida riddada jacaylka qabin ayaad igu soo riddo ruuxaan aniga arkoo dunida riddada jacaylka qabin ayaad igu soo riddo iron aniga ku rabo raqiisna igumayd iron aniga ku rabo raqiisna igumayd sidaan kugu riyaaqsanaye iron aniga ku rabo raqiisna igumayd iron aniga ku rabo raqiisna igumayd sidaan kugu riyaaqsanaye ku raacay anigu qalbigay ku raacay ku raacday anigu naftayda ku raacday anigu qalbigay ku raacay anigu naftayda ku raacday anigu qalbigay iroon aniga ku raba raqiisna iguma tihid iyo weliba cumar shooli iyo gacanta macaan ee kabankaasi lagu tunayay dhinacan iyo mar kale waxaan soo jaleeci doonaa shimaali axmed shimaali qiyaas ahaan 30 sano ayaa ka soo wareegtay waqtigii ugu dambeysay baan oran karaa magaaladan Hargeysa ee caawa markaasi aanu fadhino barnaamijkana aanu idinka soo tabinayno si kaliya laaba baan ku leeyahay soo dhawow ku soo dhawow shacabkaaga ku jeclaa magaaladaadii ku soo dhawow muddooyinkii ugu dambeeyay xoogaa fankaaga waxaad moodaa in yar uu yaraha kada sidaa darteed dad badani ay suuqa markaasi ka lahaayeen shimaali axmed shimaali wuu ka baxay fankii Soomaalida wax wara adigana lagaama helin oo arintaasi aad kaga hadlayso run iyo been hase yeeshee caawan fadhina maxaa ka jira warka horta nimcooy aad baad u mahadsan tahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waddankaygii labaad inaan imid oo xukuumad iyo shacab iyo askariba iyo ciroole iyo caruur si weyn naloogu soo dhaweeyey taa hada min fadli rabbi fadligaas ilaaha bixiya marka nimcooy horta shacab iyo xukuumad yar iyo weyn ilaa madaxweyne ilaa wasiir ilaa caruur iyo ciroole waan salaamaya say noogu soo dhaweeyeen waxaan leenahay miisaankiina aakhira ilaahay ha idinkugu daro nimcooy horta aniga waxaan ku noolaa waddan fankiisa uu xirxiran yahay sacuudi arabiyaan ku noolaa jidda 24 sannadood sacuudi arabiyana ma aha beled fan marka sidaas ayuu fankayga u hakaday horta inaan TV soo fariistay weli ma oran oo laygama hayo fankii waan ka baxay fanka waa la siga bixi karaa yahdillahu linuurihi man yashaa yani anigu weli inaan TV soo fariistay shimaali fan waa ka baxay ma oran fankana wax uu qabo aniga garan maayo fanaan waa loo baahan yahay murtida waa loo baahan yahay anaga wax qalado sheegi mayno dadkan waanina mesela nimcooy haddii aan oran lahaa maxkamadan aadaya raguushow aaya male ashuunkay ku adimaan haweenkaa ka amar weyn ma hees baa miswawaano anaa eeday oo ka ooyey anaa ciil aqal la seexday anaa ubadkay rajoobay ninkii ashahaadanayo dadka gaalada ah aadin kaasi hees ma oran kara aniga waa wacdi fanaaniinta waxay jacayl bay qaadaan waxay qaadaan wadani iyo wacdi bulshada markaasi hadba say tahay ayaan wax ugu sheegnaa haddii taas la diidan yahay ma aqaano laakiinse anigu nimcooy fanka ma bixin waan ku faraxsanahay soo dhaweyntaada adiga inaan kula kulannaa aniga cumar shoole waa ku faraxsanahay wixii su'aal aad haysidna inaan kaaga jawaabaan diyaar u ahay warku cad yahay sabar muuqda su'aal ka dhanba la yiraahdaa hadii in badan markaa la isla dhex marayay warkaasi isaga ah caawa ka isagiyo nool oo idin soo hor fadhiya shimaali axmed shimaali deediyiri warkaasi waxbaba kama jiraan heesa badan oo aan halkan lagu soo koobi karin buu leeyahay fanaanka oo qaada shimaali axmed shimaali bal waraysiga iyo qaybaha kale iyo isxaal waraysiga iyo xogta barnaamijka qaybaha dambe ugu tagi doonaa haddii aan idin xasuusiyo oo weliba aan idin soo qabto mid ka mid ah heesaha
fanaanka shimaali axmed shimaali weliba sida gaarka ah aadka loo xiseeya baan odhan karaa aniguba aan ka mid ahay dadka dooq ahaan la dhacsan fikiriyo naftayday أي أستاذ نمعة أيضا بقطر عبا وياي فكريو نفتيذاي في لواغن يقدعي في انتباليذي فكريو نفتيذاي في لواغن يقدعي في انتباليذي في دبدح wadnaha suran tii jacayl ku fidisayba fulin weyday wacadkii feedha bidax wadnaha suran tii jacayl ku fidisayba fulin weyday wacadkii فعلات سميسانا سمربا وفي عاني فعلات سميسانا سمربا وفي عاني هفكني لفيها يجوب هفكني لفيها يجوب فعلات سميسانا سمر باو في عاني فعلات سميسانا سمر باو في عاني هفكنينا فيها يجوب هفكنينا فيها يجوب فرحان عياريو أروس بان فيلاي سوكن فالكي جسكالي فرحان عياريو أروس بان فيلاي سوكن فالكي جسكالي فالله وجستين ميدان في روديرين فولي ويدي وعدكي فعلات سميسانا سمر باو في عاني فعلات سميسانا سمر باو في عاني هفكنينا فيها يجوب هفكنينا فيها يجوب نمعة وإلبتي وإلبتي ولا لي وحا إسو حسوسي صدن سنة كور حتى هو ذاك مسؤولة xusuus iyo berisanaad iyo weliba dee marka halkaasi xaalku marayo dhankan iyo waxaan u imanayaa cumar shooli madaalaha waa beri horena waan u sheegay waxaan idhi markii isugu kaayo horeysay maaha waraysi hore iyo weliba dee xog baanu kala qaadanay shooli waxaan maqlayay maalin dhaweyto adigoo ka cabanaya arrin ah magacaagii oo markaasi fanaan kale uu yacnihii aad leedahay fanaan kala qaatay magacaygii arrintaasi iyo in fanaan hore magaciisa la qaato iyo fan ahaan adigu sidaad u aragto iyo arrintaasi haye nimcoy horta waxaa la yidhi hadal sheeg kii wax kuu tara sheeg hadal ku hadal bulshada wax u anfacayo sheeg aniga kulle fanaan bannaanka yeelanahay
ma qarsoonayo magacayga fanaaniin noocaasaa jiraan shamaali hadda ninka sheegto isaguun bay u taallaa shamaali waa shamaali shoolli waa shoolli shakigaba ha laga saaro aniga waxaan qabaa hadda qofkaasu haddaan la tartamo magac weynaan buu u sameeyey laakiin la tartami maayo aniga meeshaan tago kuraasta waa laga boodayaa dadku waa i yaqaaniin nin kale oon hadda magac doon ah aniga hebel dhihi maayo qofaan la hadlayo male fanaaniinta dhallinyarada waxaa ku jira fanaaniin fiifiican baa ku jirta oo beri anagana bedeli karo oon asluub laakiin u shaqeeyo si asluubaysan ma ahan in yacni sidaaba fadeexadaha iyo noocaas oo kale laga haro aniga hebel dhihi maayo laakiin waxaan ku leeyahay fanaan waxaa fanaan ah ninkii codkiisa iyo magaciisa ku kalsoonaado ku eg fikiriyo naftayday filan waagan igu dhacay fiintuba la oydee waa tahay hayloobina barnaamijku inuu yahay barnaamijkii xiisaha badnaa ee fanka iyo suugaanta caawana halkii ugu cajiibsanayd ayaynu maraynaa maadaama oo marti ay noogu yihiin nasiibkuna idinku simay inaad wada daawataan laba fanaan oo aad qaali ugu ah bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan hareerahayga ayay fadhiyaan aniga qudhayda caawa aad u nasiib badan dhinacayga bidix waxaa fadhiya Shimaali Axmed Shimaali dhankayga midigna waa Umar Cabdulle Shooli madaalaha waa bari barnaamijkii caawa marti noogu yihiin waxaan rajaynayaa inaydaan dhinacnaba uga dhaqaaqin oo markaasi xataa kabankii caawa halkan uu yaallo oo si toosa markaa la idinku tumayo oo aad ka wada bogan doontaan horta marka hore aan idhaahdo bal soo dhawow Shimaali Axmed Shimaali nimcay soo ma fiicnayn fanaanka igu weyn inaad ku bilowdid soo koriyey edab iyo asluub عمر شيليو تشوغا أنا جو هذا ما ياسيكو بلو
xaqiiq weeye taasi waxaan jecelahay ixtiraamka iyo kala dambeynta iyo qadarinta ay isku hayeen fanaaniinta waaweyn dabcan ee midba midka kale oo aad u xushmeeyay waan idinku ammaanayaa shooli malaha dhowr jeer baan kulamay sida darteed baa waxaan isiri bal tiraahid marka hore soo dhaw Shimaali Axmed Shimaali hase yeeshee Umar Shooli soo dhaw sidoo kale nimco sabriye ama nimca cadeen dhaho waa ku salaamay adigu inta jeceshahay inta kula shaqayso dhan all dhammaan shaqaalaha honkeval madaxda kore madaxda dhexe ilaa hoos soo dhac shaqaalaha kale kullu waa horta waa idin salaamay waxaan salaamayaa hadana bulshada ku nool Hargeysa dhammaan waan salaamayaa salaan kadib se waxaad kullee waxaan u malaynayaa waxaan ugu soo talagalnay hadal bilaash ahaan ma buuxsho waxaan rabnaa inaan idin maqashiino sida aniga iyo runtiisa idinku sheegtay Shimaali Axmed Shimaali waa runtiisa waa respect ay ka tahay yani qiimeynta fanaanka ka weyn haduu qiimeeyo fanaanka weyn kan yar oo qiimeeyo yani sida ma ahayn xalku marka in la isqiimeeyo waa waajib aniga doo hadalka badin maayo nimco waana ku salaamayaa inta jeceshahayna waan salaamayaa intaadan jeclayna kugu qasbi karo marka waxaan leeyahay waxaan ku bilaabayaa hees la yiraahdo Iron caawa koor ma qaadin heesaas laakiin ayadoo album music ana waa iman doona laakiin hadda kabankan ku tumaya waxaan jeclahay marka fanaaniinta kale oo da'yaro halkan ku noolna ayagana waan salaamayaa si gaara waxaan leeyahay halkiinaan ka wada annagana halkaanaan keennay fanka sidaa waxaan dhihi lahay aragti waxaan dhageysi waxaan nimco adigana waxaan u malaynayaa ilaa dee South African ka fiirsaday halka ka wad adigana ka joogsan marka sidaas waxaan leeyahay daba waliba hadana kaamiristiyalka dhan magacooda ma koobi karo ma qoranin laakiin waan salaamayaa saaxiibkeena asigana xagga farsamada fadhiya jaawur waan salaamay waxaan salaamayaa hadduu ilaahay ku riyaayo waxaa dhammaystiri doona Shimaali nin la yiraahdo warsame Africa Airways iyo Shariif aan meesha ka maqnayn runtii aad iyo aad noo soo dhaweeyay oo runtii aniga Shimaali ba dhammaystirka asaab bixinaya aniga kolle Shimaali qofba qof baa lagu bartaa runtii ninkaasna waa salaamaya nin la yiraahdo maxamed cabdina waan salaamaya intaan ilowna raalli aan naga noqdeen because dadka magacooda ma koobi karna kulli marka waxaad sugtaa wax waa Iron heeska liraanu ka bilaabaya Shimaali waa aday ku sugaysaa marka aniga laakiin aniga ana bilaabay runtaan kugu jeclaa ralliyaan kugu aqaan naftayda ku raacday iron aniga ku rabo raqiisna iguma eed iron aniga ku rabo raqiisna iguma eed sidaan kugu riyaaqsanahay iron aniga ku rabo raqiisna iguma eed iron aniga ku rabo raqiisna iguma eed sidaan kugu riyaaqsanahay ku raacay anigu qalbigay ku raacay iraacday aniga naftayda ku raacday ku raacday anigu naftayda ku raacday
habeenkii kugu arkaa adoo ku raadinayo hurda macaan ku jiro riyaan habeenkii kugu arkaa anoo ku raadinayo hurda macaan ku jiro ironaniga ku rabo raqiisna iguma iid ironaniga ku rabo raqiisna iguma iid sidaan kugu riyaaqsanahay ironaniga ku rabo raqiisna iguma iid ironaniga ku rabo raqiisna iguma iid sidaan kugu riyaaqsanahay ku raacay anigu qalbigay ku raacay ku raacday anigu naftayda ku raacday haddaad magac kale iyo waxaas raadisid waxa waaye niman beertiisa ku yaraata beer kale islaameed jafaaliye oo meeshaas anigaa iska la yiri marka ma soconayso aniga kolle nin waxaan ahay intaasoo fanka ku dhex jirna 47 sanaan ku jirnaa fanka 47 sano aniga fanaaniin baa iga horreysay ma inkirsani ninkii darraata dhimanaya allahu naxariisto maxamed axmed kulo fanaaniinta naga horreysay waa maxamed salamaan cumar dhuule dadka saas waa naga horeeyaan xamar qaasin iyo lolojoof dadkaasoo dhan waa naga horeeyaan marka ma dhihi karo dadkaas anigaa ka horeeyo haddana inaan magacooda soo qaato aan ku cayaara ma ahayn aniga kolle ma jecli in magac xumo iyo masiibo maray ku raacaan marka qofkan gafkaa samaynayo bulshada soomaaliya u taallaa aniga ima taallo bulshada soomaaliya inay wax ka qabato ama tallaaba ka qaato because soomaalida sharaf baa lagu ogaa nidaam baa lagu ogaa waxaa lagu ogaa waagii hore heesuun baa layska qaadan jiray hadda magacii waa lasugu soo galay nimcay magacii qofka hadda marka nimac sabriya haddii too kale inta nimac sabriyaan la yidhaahdo ma soconayso nimac sabriya oo soo shaqaysay nimco saas ama nimco isku nimid maahine aniga nimco sabriya leema yidhahdo honkeedana kama shaqeeyo inay saas tiraahdo laakiin nimco sabriyaan ba ahayba ma soconayso qofka fanaanka kalena fanaanka kale iyo dhihin anigaa saas ah waxaan dhihi lahaa qofka haddiiba lasoo qaadqaado magac weynaa loo sameeyey shoolle weeye ma jiro qof kale aniga carruurtayda saddexa ka haysto hadda nimaan soo saaraa hal kaas waxaan jeclahay ilaa hataa hargeysa inaan keeno oo inta laga sii daayo yacni waa fanaan anigu horta iga xishoonayaan laa soo gelin meesha hadda waxay daruurta ku tahay magacyadayna qof kaleba hadduu isticmaalayo inaan wiilkayga soo saaro ana ku dhahay may saas weeye saas weeye marka may wallaahi marka waxa weeyaan wiilkayga ayaan soo saarayaa axmed cumar sholle mid kalaa jirool marka labadan horta halaan soo hormarinaya saddexdan marka dadkan oo hadda dibadda ama dibadda ku hadlo dad baa jira fanaaniin fiican waxaan halkan ka salaamayaa aan runtii abwaan iyo aqoonyaan ninka dhaca cabdi good waan salaamayaa ninkaasoo ninka anshaxuma ka sheego yani waxyaalahaas waa raaca waa tax raaca ilaa uu yani meel ka saaro cabdigood aniga hadda ma aqaano inta hadduu iga hor yimaado laakiin waa nin la soo diray waayo oo mataqaanaa suugaanta daba taagan marka waa loo baahan yahay idinkuna sidaasoo kale waa inaad mataqaanaa wixii qaldan aad dadka u sheegtaan wixii fiicanna aad ku dhiirigelisaan maadaama meediyaad joogtaan marka aniga inaan intay imaado hees maxamed salamaan aan qaado mush macquul heeskan nin baa soo qaaday ama axmed mooge aan qaado axmed mooge soo qaado maya waa qaldanahay laakiin fanaannimo ugu ictiraafsanahay guri dhexdiisa haddii lagu baashaalo oon la duubin ama tv loo imaanin waa la samayn karaa laakiin ninkii oo taagan ama dhintay
ayaa nin kale heeska sheeganaya anaa qaadayo leeyahay hibalan marka ma soconayso taas magac waa hal mar wax ixtiraamkana waa mar ay shacabka ku ixtiraafaan calaa kulli xaal nimco hadal kuma dhammaado tv-ga kuma dhammaado laakiin meediyaasha waxaas fiirisaan ninkii hees uusan lahayn la yimaada media waxaa tiraa isku soo noqoniyo heeskan ma lihid celi way b b c da dad soo burin jireen waxay yidhahdeen saaxiib heeskan dadan ku ogna gurigaaga u noqo hees kale keenso marka intaasaa ladinka raba allele waa iska laabadaas badde horta tani kaama soconay sidaas danba u imanaysaa dhankan iyo shimaali baan mar kale jaleecayaa waxaan filayaa riwaayadii ugu dambeysay ee isa seega jacaylka riwaayado badan baad ka qayb qaadatay fankaagu ma cusba oo hadda ma odhanayno shimaali baan idin baraynaa xilligaasuu bilaabay xilliga ee taasina lagamaba siisanayo hase yeeshee waxaa dhici karaysa kooxo kala duwan kooxdii kuugu horreysay ee adigu aad markaasi ka qayb qaadateed ka mid noqota kooxday ahayd maxaad naga xasuusin kartaa fankii wakhtigaasi anigu nimcooy anigoo arday ah dugsiga sare sayid maxamed cabdulla xasan marka ayaan ka soo baxay waxaan aada u jeclaa fanka xamar baan imid 79kii bay ahayd waxaan qaaday heestii ugu horeysay waa nagoo firaashiyo farxadaan wadaagno faysal iyo xambaartood faarax daadahaysaa ereyada waxaa lahaa alla yarxam cabdalla nuurudiin qaysar muusigana waxaa lahaa alla yarxam shiiraan shidaad muraad anigana waan qaaday marka heestaasaan ku soo galay horta fanka 79kiina way ahayd waa yar iima barya nimco yuu ku sirin wejigayga anaa qiranaya maanta tvgaan joognaay marka nimcooy bakaka soomaali abo baan ahayn waxaanu qaadi jirnay laafateena bilisuma soma soomaali abo afkaas qotigana waa aqaan yaan kuu gaban waan ka soo baxnay waxaan la baxnay durdur kooxdii durdur alla yarxam sahradawa odaygeedii ciise daahir qaasim ayaa horta aniga isoo saaray macallinkayga ahaa ilaahay waxaan ugu baryayaa bifadli hadihi saaca almubaarak asaga iyo inta fanaaniin oo dhimatay alla yawasic qabrahum alla yanawir qabrahum alla yaxfadahum fi alaakhira alla yazawad miisaanahum marka inta dhimatay oo dhan hortaasaan ugu ducaynayaa rasuulkuna waa kii yidhi ducaau lmusaafir mustajaab anigii iyo shoole musaafir baan nahay ducadeena inuu ilaahay aqbala ayaa laga yaabaa rasuulka been ma sheego wamaa aataakum arasuul fakhuduu wamaa nahaakum canhu fantahuu waa ayad qur'aan marka ilaahay hor ducada naga aqbalo idinkana waan ii ducaynay annagana noo duceeya marka nimcooy baryahan dambe aniga waxaan u batay dhinaca ninba dhan u badi waa ti la dhihi jiray horta fanka soomaaliya oo dhan waa wada fanaan hadda waan ku faraxsannahay aniga iyo shooli wax la bedelo waa doonaynaa inkastoo weli halgami karno laakiinse daaqadda waxaan u banaynaynaa ragga naga dambeeya waxaan leenahay welcome laakiin welcome ku soo dhowaada oo idinkoo naga saqaynaynin oo na xafidaysaan na sharfaysaan marka aniga waxaan u batay dhinaca nebi ammaanka waxaana iska yaalyaal ma aha waa haybad ilaahay ku siiyo fanaaniinta way badan yihiin kulli ma wada qaadaan nebi ammaan ninkii ilaahay u doorta ayuunbaa qaada marka waxaan rabaa inaan waxyarkaaga soo qaado shoole waa heesay ani waa ku heesay odayaasha dee nebi ammaanka jecelna inaan markooda u dhex gelino miyaanay ahayn awalow nebiyo waan salaama awalow nebigeeni waan salaamaye قاسم آبه سلام أولو نبي والسلام أولو نبي والسلام قاسم آبه سلام إيه لما اشترى نمعوي أذيك تدوينها مقشين دونا واد ما تنتهي نمعوي وحان إلاوي كريم أن كفى إذا تشارس كان عاد السيسي ubax fahmo fanaanada iyo odaygeeda subxaanyo ayaan si gaar ah u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa salaan qalbi ah suu ustaadka cumar shoole uu ku sheegay jaahuur top design ninka magaalada nagu soo dhaweeyey waa isaga waxaa kaloo waxaa hiil iyo hooba nagu soo dhaweeyey ninka warsame xasan gaas
waa African Airways ninkaasi nimcoy si gaar ah ayaan aniga iyo saaxiibkayga qaaliga marna aabahayga si gaar ayaan u salaamaynaa warsama iyo bahdiisii African Airways oo dhan adiguna naga gaarsii waad mahadsantahay nimcoy sidaas ay ku gaadhay dabcan mar haday shaashada inaga baxo warka waa la helay bay ka dhigan tahay bal mar dhawaan idin weydiin doonaa waan idin iman doonaa waxaad wadaan shacabka waxaad wadaan bushaarada waan dambaysiinaya laakiin bal danka heesaha aan mar kale ku imaado heestaad wado ee aad leedahay kuwa kale dib baan u dhigaya heestayga si qabta heesteen soo doorna horta nimcoy heesaha haddii waa qaadayna aan dhahno waagaa noo baryi anigii istaadka markaan dhexda ku gashano laakiin anaga soo koobayna heesaheena waxaan kaa codsanaynaa inaad habeenka aan showga dhigayno inaad toos aad u duubatid laakiinse hadda dadweynaha wax yaroon ku madadaalino ayaanu jeclaysanay inaan anigii odaygaba ku siino odayaan dhihin dee iyo xanaaqayna haa 6 sano igu weeya wax weyn miga weyna yaa nimcoy aniga waa war igu baryin waataan kuu sheegay haddana kugu celinaya 6 sano unba igu weeya marka wax weyn hees baryahan dambe caruusidiyaa batay allah noo zaa'idiyo marka caruuskaas batay inaan anna hees ku daro ayaan niyeystay marka heesta sana ciyaaraya heestaasi caruuska intiis aroosatana waxaan leenahay haddaba waa dabaaldegiinii inta soo socotana ee hordhac usii qaataanu leenahay heestaasi arooska shimaali axmed shimaali aan ku wada ciyaarna dhammaanteen jacaylku kala dambeeya deeq iyo maal duca waalid helaa dunya alla siiyo ubadda deheya dulqaad weheshada waalidin ducayle adigu kula faca kuwa ka waaweyn waa jiraan aniga ka waaweyn adiga kuwa adiga kula jina iyo kuwa ka yar yar dad waa la soo saxaabeen hore waxaan arkay gabar ka heesaysay maandeeq halkaani soo dhigata waa fiirinay maandeeq waxaa yidhi maandeeq maa heesaysay gabar yaray ahayd tv-gan ka fiirinay war waxaan yidhi wallaahi waxaan yidhi waa la soo socdaa dee anaga kuliyaan ma taagnaan karna waa dhiman karna waa duqobi karna moogta dad baa soo socda idinkana dhiirigeliya garbaha inkastoo nin geesiya raggu geed adeega haddaan garabka lala qaban guryahoodi maalira marka finaanintaas yaryar soo dhaweeya markuusan ka bixin xadkiisa uusan isuu bega barnaqan uusan naqan waa inaad soo dhaweysaan marka heesaha watan haddayna kuu sheegay heeso cusub heeso dhexe heesihii hore ayaan soo arkiibiyaaraynay hataa shamaalina waa sidaasoo kale u heestaa marka dee kolle waxaan u malaynayaa hadalka waxaa ka fiican in la ururiyo sida heesaha markii hadalka muusig dhex galo waa aruuraa waa yaraadaa laakiin hadalka maanta waa laska hadli karaa marka waxaa dadweynaha iyaga sugayaan meel kasta ha joogeen wixii af soomaaliga ku hadlayo in aawa ama ayna arki doonaan ama ay habeenkii mataqaanaa barnaamijka dambe ay si fiican nooga dharki doonaan waa kan shimaali dhowr 20 sano ayaad sacuudiga aad ku noolayd oo dhegta un sidaa lagugu taagayay fankaagii habeenkaasi hadduu ilaahay qadaro dadka waad soo hor istaagi doontaa maxaad intaa raacinaysaa nimcoy markaanu qaadanay bk iyo xamdi queen ma aha inaan fanaaniintii kale ee yaryaraha hargeyso aanu ka tagnay nasiibka ayaga ayaa ilaahay noogu daray marka fanaaniinta kale waan idin jecelnahay dadkan ayagaa jaaniska helay marka si kale hanoo arkina ayaan leeyahay heesta arooska waxay tahay markaan in yar iyadoo bilaa musiga kuu qaado labadii isdoortee daryeela jacaylko kala dambeeya deeq iyo maal duca waalid helaa
jannadii dugsoonay durdurkeeda kacaba dayn haydinka yeele waad isdoorateene dayn haydinka yeele waad dabaaldegiine dayn haydinka yeele waan idin ducayne dayn haydinka yeele ay hoobalow hele hoobaalayow hele waa tahay alla ilahe yaa salaam taasina heestaasi bay markaasi haddaynu mar kale soo qabanno iyo weliba heesaha kale ee dee cajiibka ah heesta dhaantada ah iyadna waa heesaad hargeysa ku qaaday baan filaya intaad joogtay erayadeeda heesta waa guuxda dhaantada guuxda la yidhaahdo weeyaan waxaa ka mid ah erayadeeda iyadoo musiga waa dadweynaha way ka dhargi doonaan laakiinse waxaa fiican shayga asoo bilaa musiga horta kow ina dadku ay daawadaan kadibna asigoo dhammaystiran inay daawadaan waxa weeyaan iyadana anna waxaan ku weeri oonan weligay ku ooran amantaada inanyay ku ildoogsanaya amantaada inanyay ku ildoogsanaya cashaq baa idilo idaashadayay waan ku daawanayaaye dawadaydii ahaawe waan ku daawanayaaye dawadaydii ahaawe waan ku daawanayaaye dawadaydii ahaawe nimcoy adigu dhammaystir iyadoo muusigii iyo weliba cajiibka inaguna ciyaarta aynu raacino iga qabta dhaantadaasina dawadaydi ahaawe
daashaday wanducay sanayaaye deeqakaale adri wanducay sanayaaye dawadayaydiyahaw anna waxaan ku iri onan weligay kuur amantaada inayay ku ildoogsanaya amantaada inayay ku ildoogsanaya سنياي دوذيدي أهاوي وانتعي سنياي دوذيدي أهاوي صدرور كالقعالكا درور باي قهورتي وانتعي سنياي دقكالي هدري وانتعي سنياي دقكالي هدري وانتعي سنياي وانتعي سنياي دوذيدي أهاوي وانتعي سنياي دوذيدي أهاوي وانتعي سنياي دوذيدي أهاوي وانتعي سنياي دوذيدي أهاوي كان والد شيء وحن ذلك سهل تكلم يبقى سهل موسيقى عجيبة له هبين كاسي بندق فلات كاي قبانيان شولي إلى الشمالي سفك هريان لإذن كوين حتى يبقى كبو حسن تواقع صور من إديسي شاكني وإنا مكاسي لغا هرين كلمة لها قبل قبل وان ودي بدونا مكرفوكا وحن آدي مهد عليا مكاسي ملكيلها يولي والشقالها دمانتور رستوران كاسكاي وأهل كأنه برنامج كان وقبلنا أو طبعا أهمل وروح بدن وأنا قدرنا إن البرنامج كان كذي كسرت من طبعا كان أدي أدبر كسرهم حد علينا فيصل جامع محمد يوليبا أحمد عثمان دواء ما شاء الله وحليس دين هيدين كيري ودبر دقيني دين هيدين كيري وديس دورتيني دين هيدين كيري dunida waa maalme doorka aakhiro dembi aan lahayno jannadii dugsoone durdurkeeda kacaba daa'in haydinka yeele waad isdoorateene daa'in haydinka yeele waad dabaaldegiine daa'in haydinka yeele waan idin ducayne idinka yeere ay hoobalow hele hoobaalayow hele ay hoobalow hele hoobaalayow hele labadii istoortee daryeela jacaylku kala dambeeya deeq iyo maal duca waalidela dunya alla siiyo ubadaadeheya dulqaad weeshada waan idin ducayne dayn haydinka yeele waa dabaaldegiine dayn haydinka yeele دورتيني دين هيدين كيري أي هو بلو هلي هو بلو هلي
caruuska iyo shimaalina inaad si fiican uga bogateen ayaan markaasi rajaynayaa. madaalaha waa beri iyo weliba cumar shooli baan dhankiisa imanaya. aan markan isagana idhaahdo bal waxaad noo qaadaa shooliyo sahankii jacaylkaay salaadaha dhexdoodan sahwiyaa daraadda. yaa salaam hurdadaan ka salela iga qaba shooli mikrofoonka. waa siday sheegtay nimco sabriye runtii heestan waa cusub tahay caawa hargeyso magaalo hargeyso waxay nasiib ay u yeeratay heestaas inaan halkan ku dhaafo ama aan ku duubo runtiina on cable aan u dhaafo weliba marka heestu ma ahan hees aniga ma samayna heesta ereyada waxaa sameeyey cali ziko nin la yidhaahdo laakiin muusiga iyo codka waa aniga da kulle sahankii jacaylka salaadaha dhexdoodan sahwiyaa daraadda hurdadan ka salila mana seexdo awgaa muddo badan ayaan sugaya inaan saamin kugu helo saddex kuga xalaasadii wuri dabadeedna sabab waxaan sahankii jacaylkaay salaadaha dhexdoodan sahwiyaa daraadda hurdadan ka salala sahankii jacaylkaay salaadaha dhexdoodan sahwiyaa daraadda hurdadan ka salala mana seexdo awgaa muddo badan ayaan sugayay inaan saami kugu helo saddex kugu xalashado dabadeedna sawa wacan mana seexdo awgaa muddo badan ayaan sugayay inaan saami kugu helo saddex kugu xalashado dabadeedna sawa wacan subaxaan waraba naftu igu sidigtaay subaxaan waraba naftu igu sidigtaay hodna sacabka haw tuman sadaasha beenta adduunyadan silsilada hodna sacabka haw tuman sadaasha beenta adduunyadan silsilada qofna kama salgaaro saaka yeeladoo leba wadka laysku seegaa hodna sacabka haw tuman sadaasha beenta adduunyadan silsilada hodna sacabka haw tuman sadaasha beenta adduunyadan silsilada qofna kama salgaaro saaka yeeladoo leba wadka laysku seegaa soomaaliyooydin dumarkoo safnaaday munadoodii sanadkan tii aan ka socday soomaaliyooydin dumarkoo safnaaday munadoodii sanadkan tii aan ka socday waxaad ila siman tahay quruxdeeda sidataa qorax soo baxayso
marka sare u qaado dhirku sagal ku larayay waxaad ila siman tahay quruxda sidata qurax soo baxayso marka sare u qaado guud suran badweyntii dhirku sagal ku larayay sayrisay falaara dhirku sagal ku larayay sayrisay falaara hadna sacabka hawtuman sada shabeenta adduunyadan silsilada hadna sacabka hawtuman sada shabeenta adduunyadan silsilada qofna kama salgaaro saaka yeelado leba dadka laysku sigaa hadna sacabka hawtuman sada shabeenta adduunyadan silsilada hadna sacabka hawtuman sada shabeenta adduunyadan silsilada qofna kama salgaaro saaka yeelado leba dadka laysku sigaa waa tahay shooli iyo weliba heestaasina iyadana waad iga haysaan baan filayaa weli xagga dambe ayaan weliba waan soo socdaayo hadba heesaha waxaan isleeyahay halka hore kalgacalka ha soo wada marinina bal xagga dambena aad dib ugu dhigatid waxaad dareemi karaysaa dabcan labada fanaan ee hareerahayga fadhiya waxa ay soo wadaan bandhig faneed markaasi xiiso badan oo ay ku qabanayaan magaaladan Hargeysa dad badan baa isweydiiyay mar hadday yimaadeen talo Hargeysa sidaasi miyay kaga tagayaan bandhig faneed bay qaban doonaan heesahan iyo waliba kuwogi kale ee xiisaha badna shooli Hargeysa ka dhacaya sidaan maqlay waa Hotel Crown heesihiin baad ku soo bandhigaysaan labadiina ka wada qayb qaadanaya yaa idin kula jiro kale bandhig faneedkaasi ku jira dhalinyaro waxaa ku jirta oo magaaladan laga jecel yahay runtii markaan soo qaado alfanaan bk iyo gabar aan ka dhicin la yiraahdo magaceeda xamda kuwi marka fanaaniinta nimcay kuwa kula jinna waa la helaa